daawadayaal qaybtii labaad iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada diblomaasiyadda ayaan bartanka kaga jirnay haatan OPEC ururka dalalka ama sharaa'iga waaweyn ama dalalka waaweyn ee soo saara shidaalka ay ku midaysan yihiin waa dalalka inta badan dunida ugu hodansan dhinaca shidaal soo saarista ee ururka la yiraahdo the Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC loo soo gaabiyo ayaa waxay markii ugu horeysay ku dhawaaqeen talaabo loo arko inay wax ka bedelayso shidaalka cirka qiimaha shidaalka cirka isku shareeray adduunka iyo dhimis xoogan iyo wax soo saaris ay kor u qaadeen shidaalka arintan oo ahayd arin Saudi Arabia markii hore wadatay isla markaana ay ku dhintay ama ku tirtirsay dalalka ay saaxiibka la tahay inay dhimaan soo saarista shidaalka ayaa waxa walaac weyn ka muujiyay dalka Mareykanka ayaa maalmihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay oo dhan xooga ku saarayay isla markaana ku cadaadinayay dawladda Saudi Arabia inay ka noqoto go'aankaas isla markaana ay kordhiso wax soo saarka shidaalka ee maalinlaha ah si qiimaha shidaalka adduunku uu jabo haatana shirkooda ka soconayay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa OPEC waxay ku dhawaaqday in wax soo saarka shidaalka kor loo qaadi doono shidaal soo saaraha ugu weyn ee adduunka ama dalka ugu soo saarista badan ee shirkadda aan iraahdo ururka OPEC waa Saudi Arabia ayaa sheegtay inay gaarsiin doonto 1 milyan oo foosto maalintiiba inay soo saarto taasoo markii hore ahayd ama ay hore ay u dhintay in ku dhow 250 foosto oo ay soo saari jirtay 250 kun oo foosto ay soo saari jirtay 770 kun oo kaliya haatana waxay dawladda Saudi Arabia ku dhawaaqday in ay 1 milyan oo foosto maalintiiba soo saari doonto waxa loo yaqaan PPT isla markaana ay xoojin doonto Saudi Arabia boqolkiiba hal ay ka tahay shidaalka dhammaan caalamka oo dhan laga isticmaalo taasoo ka dhigaysa inay tahay dalka ugu weyn ee soo saaray hase yeeshee dawladda dalkaasi Iran ayaa ku tilmaantay in Mareykanka uu laba wajiileenayo iyadoo oo sheegtay in ay markay aragtay xanuunka shidaalka ee kor ugu kacay shacabka Mareykanka ay haatan ay ku hambaaburtay isla markaana waxay uu sheegeen Iran waxay ku eedeysay Mareykanka in shidaalka kor u kacay ay sabab u ahayd buuri Sacuudiga oo kor u qaaday iyo Venezuela oo cunaqabatayn la saaray taasoo ah baaleenimada cadaalad hayn wasiirka shidaalka ee dalkaasi Iran Bijan Namdar Sangen ayaa wuxuu sheegay in aysan OPEC ka yeelin in mar walba ay wax u yeeriyaan dawladda dalkaasi Mareykanka isla markaana ayagu ay la yimaadaan wuxuu ugu yeeray heshiisyo madax banaani ku saleysan isla markaana ganacsiga wax ka taraya shidaalka oo dhawaan halkii foosto ee ceerin ay gaadhay $100 in ka badan ayaa durba markii go'aanka soo baxay waxa muuqatay in uu xoog u leecay isla markaana waxa suuqyada iyo saamiyada caalamka oo isha ku haynay ka muuqanayay in 74.60 uu marayo taasoo u dhigan wax uu ka yar $75 foostadii waxaana muuqad doonta baa leeyahay maalmaha soo socda in shidaalku si weyn uu u leeco dalalka Shiinaha iyo Hindiya ayaa iyaguna sidoo kale ugu baaqayay ururka fadhigiisa yahay Vienna in ay badiyaan wax soo saarka shidaalka si looga fogaado baa leeyahay dhaqaalaha adduunka oo burbura iyo dhibaato xooggan oo timaada daawadayaal wali halka nagala socotaan warfadhi media iyo wararka gudaha dunida haatana wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Turkiga oo dabcan aan u maleynayo in wararkiisa aad ay u bada doonaan bari iyo maantaba maadaama mid kamida markaasi dhacdooyinka ugu waaweyn laga sugayo dalkaasi Turkiga horta waxaanu eegi doonaa maanta waxaan isla taagi doonaa sida uu noqon doono qaabka cusub ee dalkaasi Turkiga loo asteeyay maadaama uu ka baxayo sharci ama qaanuunkii dhinaca markaasi baarlamaaniga ahaa oo dhinac madaxweyne uu noqonayo amood madaxweyne dalkaas noqonayo horta marka horeysa si aan wararkii ugu dambeeyay aan 2 taabto dalka Turkiga waxa ku soo gabagabay isla markaana waxa gabi ahaanba joogsaday saacada ka hor barnaamijyadii ololihii doorasho iyo isdhoolatuskii ay wadeen xisbiyada dalkaasi ku hardamay wararkii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in haatan magaalooyinkii ugu dambeeyay uu cagta soo mariyay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo hogaamiye Muharram Insi sida muuqatana waxaa la sheegay in madaxweynaha dalkaasi Turkiga uu tagay konton magaalo gobol madaxeed ama magaalooyinka magaalo madaxda u ah 81 dal konton kamid uu tagay iyo 20 degmo taasoo marka la isku daro noqonaysa 70 magaalo ayuu cagta mariyay waxaana la sheegay in uu nasan toddobaadyadii ugu dambeeyay Rajab Tayyip Erdogan dalkaasi Turkiga waxaana haatan muuqata in dal xisbi kasta haatan uu dib u fadhiisan doono isla markaana uu eegi doono waxa ka soo baxa sanaaduuqda teedsan dalkaasi dhanka kalena xisbiga markaasi islaamiga ah ee uu xukumo ninka markaasi ama haatan uu sharaxay Muharram waa macalinka dhinaca
markaasi physics-ka ayaa isaguna sidoo kale booqday tobanaan kamid ah magaalooyinka waaweyn iyo gobolada dalkaasi ha ugu badnaato gobolka la yiraahdo Izmir oo awood xooggan uu ku leeyahay ururkiisu waxaana haatan koox walba ay ku fadhidaa ama urur walba uu ku fadhiyaa inuu isagu guuleysan doono iyadoo u muuqata in markaasi ololihii bilowday bishii Abriil markii lagu 2018 markii lagu dhawaaqay doorashada xilligeeda laga soo hormariyay u muuqday mid markaasi aan laga fariisan in loo markaasi ololeeyo dhammaan xeelerayaasha iyo warbaahinta isha ku haysa ayaa muujinaya in ay doorashadu noqon doonto mid ugu adkeyd 16 sano ama 15 sano ee ururka AK Party uu xilka hayay isla markaana aysan noqon doonin mid si fudud loo kala baxo walow ay ku kala duwan yihiin dadka qadarigayaasha iyo wararka aynu helayno koodnaasidood ay dhamaantood qolo walba ay sheegayso markaasi saadaal ama markaasi sahamin gaar hase yeeshee daawadayaasha qiimaha leh maxaa dalkaasi hadeerto dalkaasi Turkiga seebay xaaladdiisu noqon doontaa maxaa isbedeli doona haddii doorashadan ay dhacdo doorashadan maxay tahay doorashada horta waxa lagu dooranayaa madaxweynaha iyo baarlamaanka labada doorasho ayaa ka dhacaysa laakiin kuma jiraan kuwa gobolada ama kuwa degmooyinka ama waxa loo yaqaan governorayaasha ama kuma jiraan dabcan inta badan kuma jiraan ama golayaasha deegaanka kuma jiraan labada doorasho waxa la dooranayaa xubnaha golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha baa loo codeynaya marka aynu eegno sida markii hore dalku uu ahaa dalku markii hore waxa xukumayay ra'iisul wasaare ama ra'iisul wasaaraha ayaa xukuumadda ra'iisul wasaaraha ayaa lahayd golaha wasiirada ayaa waxay ansixin jireen shuruucda markaas fulinta isla markaana waxa la horgeeyay jiray baarlamaanka ayaa go'aanka ugu dambeeyay gaari jiray hadeertase waxay noqonaysaa awood madaxweynuhu wuxuu awood u yeelanayaa inuu dalka geliyo xaalad degdeg ah inuu dalka ugu dhawaaqo dagaal markaasi uu ugu dhawaaqo in uu diyaariyo madaxweynuhu isla markaana soo jeediyo miisaaniyadda dalka oo dhan intaas oo dhan ayaa markaasi madaxweynuhu awood u yeelanaya wuxuu kale awood u yeelanaya inuu soo magacaabo madaxweyne ku-xigeenkiisa isla markaana uu shaqada ka eriyo goorta uu doono ama uu shaqada ka saaro sidoo kale wuxuu soo wada magacaabaya golaha wasiirada oo dhan wuxuuna markaasi awood u leeyahay madaxweynuhu dhamaantood inuu xilka ka qaado ama wada eriyo ama kala ceyriyo madaxweynuhu wuxuu kale oo markaasi si awood ah uu yeeri karaa inuu baarlamaanka goorta doono uu isugu waco in ay yimaadaan ama soo wada fadhiistaan sidoo kalena madaxweynuhu ama ay dabcan ay gole markaasi ay isugu yimaadaan markaasi kala fadhi aan caadi ahayn aan dhaho dabcan waa waxyaalaha soo kordhi doona dalkaasi Turkiga ku soo kordhi doona hadeerto dalka Turkiga doorashadan hadan dib idinku celiyo ama idin yar kala qaado waxa doorashadan uu diiwaan gashan inay codeeyaan dad gaaraya 59 milyan iyo 390 kun oo ruux in ka badan in ku dhow markaasi ama aan iraahdo 56 milyan iyo 340 kun oo ruux waxay ku sugan yihiin dalka gudihiisa halka 3 milyan iyo 5 kun oo qofna ay iyaguna ay jiraan dalka dibadiisa ama ay ka soo codeynayaan dalka dibadiisa oo ah jaaliyadaha dalkaas ku nool dalku waxa uu ka kooban yahay 80 iyo kow gobol ayuu ka kooban yahay dalkaasi Turkiga waxyaalaha kale aan jeclahay inay la wadaago waxa uu leeyahay ama wuxuu safaarada ku leeyahay ama uu xiriir diblomaasiyad leeyahay in ka badan 123 dal kuwaasoo aan iraahdo wuxuu xarumo diblomaasiyadeed ama xarumo dhinaca markaasi qunsuliyadaha uu leeyahay ama qunsuliyadaha uu leeyahay waa 123 oo ku kala yaala 60 dal oo caalamka ku yaala ayuu xiriir leeyahay dalka Turkiga waxa laga soo galaa haday tahay dekedo ama ay tahay airporto ama ay tahay xuduudo 34 marin ayaa laga soo galaa oo dalkaasi Turkiga laga soo gali karaa sanaadiiqda ama goobaha si kala wada goobaha codbixinta ee dalkaasi yaala ama laga codeey karo waxay gaarayaan 181 kun 896 goobood ayaa ku dhawaad 200 oo kun oo goobood ayaa markaasi ay dadku ka codeey karaan isla markaana ay codeyntu gaaraysa golaha baarlamaanka ama golaha shacabka ee dalkaasi General Assembly-ga looga yaqaan dalkaasi Turkiga waa 550 kursi ama 550 xildhibaan si kala wada 316 kursi oo kamid ah waxa haysta ururka la yiraahdo The Justice and Development Party oo ah kan madaxweynuhu xukumo ama AK Party waa xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee dalkaasi Turkiga waxaana hogaamiye Recep Tayyip Erdogan 131 kursi waa xildhibaanada hadeerto waa kuwa biri markaas la doono
beri waxay noqon doonaan war ma hayno dee allaydmo habeen dambe hadda aynu ka hadli doonaa wixii codayna soo baxa iyo isniinta baynu ka hadli doonaa xildhibaanada ay haystaan ama golaha xisbiga kale kusoo xigay Republican People's Party ama ururka jamhuuriga ah ee dadka xisbiga jamhuuriga ah ee dadka uu ka sharaxay Mr Muharram ayaguna waxay haystaan 131 kursi ayay haystaan waxaana xisbigaasi gudoomiye ka Kamal Kale Gudur waxaana ku xigeenka ninka madaxweynaha u sharaxan waa Muharram Insi xisbiga kale leeyahay HDP ama People's Democratic Party oo asagana uu hogaamiye Barfin Buldan ninka la yiraahdo iyo waliba Saysi Tamel ay ku xigeen u yihiin waxa asagana xildhibaano uu leeyahay 47 kursi ayuu ku leeyahay kuraasta halka xisbiga gacan saarka la leh kan xisbigan AK Party ama xisbigan madaxweynaha dalkaasi Turkiga la yiraahdo The Nationalist Movement Party ee hogaamiyo Devlet Bahsil 35 xildhibaan buu haystaa xisbiga kale ee la yiraahdo Good Party ama IYI waxa uu haystaa 6 kursi laba xubnoodna way madax banaan yihiin oo iyagu xisbiga kama tirsana xisbiga IYI ama Good Party ama xisbiga fiican waxa hogaamisa gabadha la yiraahdo Meral Aksener ayaa hogaamisa dabcan dalka Turkiga markaasi doorashadan haatan kusoo aadan waxyaalaha iyaab kale ee runtii lagu loolamayo waxa kamid ah nolosha dalkaasi oo si weyn dawladda Rajab Tayyip Erdogan waxa uga bedeshay 64 jirkan waa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu awood haystay tan iyo 15 sanadood ugu dhameeyay wuxuuna ahaa ra'iisul wasaare wixii ka horeeyay 2014 oo loo doortay madaxweyne wuxuuna Turkiga kusoo hogaamiyay wax loo yaqaan inuu ka soo qaaday dhaqaale madow isla markaana uu galiyay dhaqaale cad oo waxyaalaha uu aad ugu faano kamid tahay isla markaana wuxuu xiriirka uu leeyahay Turkigu dhinaca bariga ama dalalka bariga aad u hagaajiyay iyadoo Turkiga markii hore uu xiriir dhow la lahaa dalalka qarbiga taasoo loo arkay inay tahay tan sababtay in dalku uu qaninimadiisa iyo shaqooyinka dalkaasi aad u runtii u hagaagaan xisbigiisu waa xisbi markaasi xagga midig u janjeera ama waa xisbi islaami ah طبعا حزب إسلامي أهوية وحونا رنتي آدي uga helaa taageero xoogan dhalinyarada oo ayagu loo arko inay yihiin dad markaas wadaniyiin isla markaana wuxuu aad iyo aad u taageeraa dhalinyarada baa aad u taageera inta badan dad waxyaalaha dhalinyaradu jeceshahay ay kamid tahay wadaniyadu ay kamid tahay aqoonta kamid tahay teknolojiyada sayniska iyo horumarka dalka iyo waxa loo yaqaan ku qabweynaanta turkinimada ayuu xisbigu aad u riixa 54 jirka la tartamaya Muharram Insi oo 54 jira oo asagu ilaa iyo wuxuu xisbigan hatan CHP leeyahay xisbiga Republican People's Party uu ku soo jiray ilaa 2002 wuxuuna kamid soo noqday ama uu noqday ku xigeenka xisbiga sanadkii 2014 wuxuuna ku soo caanbaxay inuu aad u cambaareeyo siyaasadaha xisbiga madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waana ninka haatan asagu la aaminsan yahay inuu la loolamayo Mr Rajab Tayyip Erdogan waxyaalaha uu aad ugu dadaalay hadeerto Mr Muharram waxa kamid ah in dalkiisa ay doorashadan ka dhacaysa ay wareeg labaad la isla aado si uu markaas u helo xisbiyadan yar ee iyagu ku kacsan Erdogan inay markaas isku biiraan codkooda isku biiriyaan maadaama markii hore lagu guuldareystay inay hal cod wada yeeshaan waxa muuqanayay basaska iyo baabuurta waaweyn ee dhinaca doorashooyinka codbaahiyeensha ee Soomaaliya isla markaana heesaha wadaniga laga dananinayay in haatan dhamaan ay ku soo guriyaan noqdeen dadkii markaas ololayaasha ahaa dadkii ololaha xoogan waday waxaana caalamka dhan isha ku haya sida doorashadan u dhacayso madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan inkastoo lagu amaano horumarka dalkiisa uu ka gaaray dhinaca militariga ama awoodda isku tashiga awoodda dhinaca dhaqaalaha teknolojiyada iyo wax soo saarka saameynta uu ku leeyahay dunida iyo codka Turkiga ee markaasi mid markaasi muuqda oo dalalka qaarkood ay haatan ka haybaystaan haddana dalalka reer galbeedku waxay ku eedeeyaan in uu runtii markaasi uu siyaasad adag la yimid kolka ay timaado waxa ay ugu yeedhaan cabrinta saxaafadda iyo sidoo kale waxay ku eedeeyaan in uu cagajugleen xoogan ku hayo dadka asaga aan siyaasadiisa taageersanayn hase yeeshee waxa uu ugu daraa markii dalkaasi uu isku daygii Afgambi uu ka dhacay sanadkii 2016 inuu gacan bira ku qabtay isla markaana dad dalal badan ayaa arrintaas ku cambaareeyay oo ugu yeeray madaxweyne Turkiga inuu si xun u maamulay ama uu ka faa'iideystay markaasi dadkii sida weyn u taageeray ee Turkida ahaa isla markaana uu xanuujiyay dhamaan wixii ka soo horjeeday ama uu cagta mariyay qaarkoodna uu shaqooyinka ka buriyay ilaa xadna la xididsiibay si kastaba ha noqoto haddii ilaahay ma ishana ku hay doona bari haddii ilaahay ma bayno kolley toos baynu soo tabi doona wararka ugu dameeya iyo sida hordhacyada u noqoto doorashadu waxay bilaabanaysaa 9 subaxnimo waqtiga maanta xadda ah magaalada Istanbul
waxaana la aaminsan yahay inay sii socod doonto ilaa iyo 5 galabnimo waxaana la rajeynayaa in qofku marka uu codeeyo bushqad uu laba jeer ku codeynayaa wuxuuna qofku la imaanaya ID-giisa ama aqoonsigiisa markaasi ama kan baawarka lagu wada noqoto aqoonsiga dalkaas laga isticmaalayo qofku tusi doona gudiga doorashooyinka waxaan kale oo la ogolayn baa leeyahay telefoonno iyo wax camera ah in gudaha barta laga codeynayo lala soo galo amaana la inta soo arki doon